markii la barayo dadka qaliinka maskaxda hadday laba nabar ku kala yaalaan midna dhanka bidix midna dhanka midig oo isku mid yihiin laakiin mid u dhow yahay computerka laga hadlo dhakhtarka waxaa lagu tiriyaa arrintaasi inuu taataabanayo meeshii ugu cuslayda binaadam geeri unbaa ka culus computerkaasi wuxuu isticmaalaa waa afkooda waxaa kale oo qiimaha labaada jiritaanka nolosheennu waxay ku xiran tahay cuntada iyo cabidda cuntada iyo cabidda iyakuna waa afka waa ilkaha waa carabka waa celyada waa halkaa haddaan afku jirin dhibaatada nolosheennu aada iyo aad bay qallayf u noqon intaas oo shaqo oo kala duwan ayuu hagaa hadday neefta tahay iyo haddii kaleba xataa dareenka qofka jacaylka hooyadu ilmaha markii la hordhigo waxa ugu horeeya qabataa waxa way afkay ku dhunkataa iyadoon cunin iyadoon waxayn ayay dareenkii afka ku gudbis marka afku qaybihiisa kala duwan waa qaybaha ugu muhiimsan ee caafimaadka hadday tahay qurxintiisa hadday tahay ilaalintiisa hadday tahay maaragtay bedelkiisa hadday tahay dawe waxaas oo dhan hibaaq hadday maadadaa la timi dalka waxay u aragtay midaan buuxinayn dareenkii dalkeeda waxay siin lahayd hadday xataa ay samaysay clinic aada iyo aada ay intaasoo dhakhtar har iyo habeen ay midba meel ka keentay oo aan dalka aqoontooda ool haddana kumay qancin waayo waxa ugu weyn ee ay dadkeeda siin lahayd maaha iligay daweyso waxa weeye aqoonta dadka inay u gudbiso sadaqada waxa kale oo dhan boqolkiiba 2 iyo xoogaa boqolkiiba in wax yar weey laakiin cilmiga inaad gudbisid waa kugu waajib boqolkiiba 100 boqolkiiba 100 inaad gudbisid sadaqadiisu ma aha mid boqolkiiba 5 iyo boqolkiiba 10 lagaga ogolanayo ma